waqtigiisii uu dhamaaday 4 sano ka hor ayaa loo doortay xilka inuu hogaamiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa ka soo wareegtay 1460 maalin maanta oo tahay taariikhda bishii 28 2021 waxaan ka hadlayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo agar sharafta leh meel walba joogtaan waa salaamantihiin fadlan ku soo dhawaada showgayga magacaygu waa maxamed faarax waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaalihii u qabsoomay farmaajo intuu xilka hayay iyo wuxuu ku fashilmay intuu xilka hayay waxaan rabaa inaan weydiiyo ugu dambeyn dhamaadka fiidiyogan ma u qalmaa mar labaad in loo doorto madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maadaama uu wali yahay musharax mise uu ku fashilmay 4 sano la soo dhaafo inuu hogaamiyo dalkan samata bixiyana dhibkii iyo rabshada iyo balaayadana ka bixiyo balse aan in yar jaleecno taariikhda 4 sano ka hor waxa dhacay sida ogtihiin 2017 bishii 28 baarlamaanka aqalka hoose aqalka sare Soomaaliya waxay u doorteen madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo markii loo doortay Soomaali meel walba joogto kuwa dhulka Soomaaliya joogo geeyiga shanta Soomaaliya joogo iyo dhammaan Soomaalida qaxootiyaanka iyo qurbaha joogo iyo anigoo xataa Columbus Ohio joogo waxaan u dabaaldegnay imaatinka iyo inuu madaxweyne Soomaaliya ka noqdo farmaajo sababtaas midaas ayaa waxay ummadda Soomaalida u jeclaatay inaan ahaayeen 99% ummadda Soomaaliyeed inuu ahaa 6 bilood xilka uu hayay 2010 iyo 2011 madaxweyne ra'iisul wasaare caadil ah oo aamin ah ku takrifalin hantidii ummadana dhicin la dagaalamay al-shabaab ciidankana dhaqaalihi hubsiiyay shisheeyana ma taqaanaa yiri iska celiyay 6 bilood kaliya ay ummadda Soomaaliyeed barteen ka bacdi oo riyaaqeen meel walba ee Soomaali joogaana waxay farta ku fiiqeen inuu ka duwan yahay siyaasiyiinta kale balse hadaba Soomaaliya hankii ummadda Soomaaliyeed ee isla hayeen ama aan dhamaanteen isdhahaynay madaxweyne hadduu mar farmaajo noqdo Soomaaliya way xalibaysaa dhibka way ka baxaysaa al-shabaab iyo ay soo la dagaalami doona nabad ay noqonaysaa baraari bash barwaaqan ku noolana ma dhacday mise ma dhicin waxaan idin wadaa si cilmi baaris ah aan idin ku soo qodobeeyay maalmahan wixii u qabsoomay madaxweyne farmaajo iyo wuxuu ku fashilmay aan ku bilaabay wuxuu u qabsoomay 4 sano la soo dhaafay ayaa waxa ah in 4 sano oo juusta ah oo isku xigto mushaar siinay ciidamada qalabka sida ee shaqaalaha rayidka 30 sano la soo dhaafay midaas maysan dhicin midda labaad deen cafinta Soomaaliya waxa lagu lahaa 5.5 billion dollar waxa ku lahayd caalamka iyo wadamooyinka sida bangiyaasha caalamka World Bank, IMF, Islamic Bank, African Development Bank ayaa waxay ku lahaayeen Soomaaliya dawladii kacaankii dawladii Korea ee qaateen deentaas oo aan iska bixin weyn interestna u badnaatay xukuumadan uu farmaajo hogaamiyay dawladdu hogaamiyay waxay la subisay علاقات IMF World Bank qaarkeed diinta wala cafi qaarkeedna wada hadalka waa socdaa waxa hogaaminayo wasiirka maaliyadda Beel oo ah wasiirka ugu tayo fiican dawladda farmaajo qodobka saddexaad hay'adihii ka shaqeyn jiray samafalka ee Nairobi iyo meel walba iska fadhin jiray Soomaaliya ayaan wax tarnaa $50 bilyan nooga baxday waxa loo soo raray Soomaaliya dawladda uu farmaajo hogaaminayo waxa ku kaliftay in ay Soomaaliya kuna qasabtay in Soomaaliya u soo guuraan si ay Soomaaliya uga shaqeeyaan qodobka afraad hegista hawada Soomaaliya waxa laga xukumi jiray Nairobi laga hagi jiray waxa loo soo raray maanta laga hagaa Soomaaliya Muqdisho halka taasoo ay 30 sano la soo dhaafay in dhaqaalaheeda iska guran jireen hay'adda ICAO UN-ta iyo dawladda Kenya shaqaalahooda qodobka shanaad siyaasadda arrimaha dibadda dawladda wax badan ay ka qabatay waxa muuqato in ama muuqatay 4 sano la soo dhaafay in beesha caalamka aan calaaqaad la suubinay magacii Soomaaliya iyo calankii Soomaaliya meel badan ka soo dhex muuqday heshiisyo aan la galnay wadamo shirar caalami ah oo madaxweyne farmaajo iyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda ay ka qayb galeen qodobka lixaad dhismaha ciidanka ummadda Soomaaliyeed ciidanka qalabka sida qaasatan sida gorgor haramcad iyo tababarka ciidamada Turkiga u tababaro gorgor iyo haramcad Soomaaliya sida ogtiin ciidamada waxa muuqata tayo leh oo fiican oo awood leh ayaa soo socdo madaxweyne farmaajo ku amaanay 4 sano la soo dhaafay badankeed inuu waqti badan geliyo in ciidamada qalabka sida uu mushaarkan u kordhiyo wasaaradda difaaca oo jiifto ciidankana waqti badan iyo juhdi geliyo 30 sano la soo dhaafana ciidan la'aan ee ummadda dawladii hore aysan
aad ama waqti badan aysan gelin ee uga shaqeyn laakiin waxaa muuqata haddii ciidankan la dhameeyo tayadoodana la dhammaystiro in amisom iskaga haajiri doonto soomaaliya qodobka ugu dambeeya toddobaad aamin waxaa la isku raacay inuu madaxweyne musuq maasuq yahay farmaajo aamin yahay afartii soo dhaafay hantida ummadda Soomaaliya dhicin dhulna dhicin hantina dhicin qabiilkiisa iyo saaxiibadiisana hanti oo siinin taasi waxaa qiraya hogaamiyaha xisbiga Wajir Cabdiraxmaan Cabshakuur oo yiri farmaajo hanti ma dhicin tuugna maaha lagamana cabsi qabo inuu hadho markuu siinay interview ayaan leeyahay noolaato uuna sheegay waana Cabdiraxmaan Cabshakuur waa taqaanin waa mucaaradka ugu weyn farmaajo wuxuu ku amaanay inuu sameeyo mid hanti umada dhacay ama hantida qaranka dhacay waxaan hadda aadaynaa intaas waxay ku soo idlaatay wax qabadkii farmaajo afartii sano la soo dhaafay waxaan rabaa inaan aado waxyaalihii waaweynaa oo ku fashilmay maadaama ay ka soo sheekayay waxyaalihii waaweynaa ee uu qabsoomay dhammaan amniga Soomaaliya oo idil farmaajo uu ku fashilmay afartii sano la soo dhaafay al-shabaab iyo ISIS wali waa argagixiso waxay xukumaan gobollo iyo magaalooyin badan oo Soomaaliya qalaad waxay canshuur ka guraan ganacsada Soomaaliyeed xoogna uga qaataan taasi waxaa ku cadeynaya in xataa Muqdisho bakaaraha dekada aeroboorka jidadka waaweyn ee mataqaana u goosha afgooye iyo Soomaaliya oo dhan ee lacag ka guraan ee wali taagan yihiin ciidamada Soomaaliya oo hogaaminaya farmaajana iyo amniga uu ballan qaado uu yiri 2 sano gudahood ayaan ku soo afjaraya al-shabaab midaas ma dhicin al-shabaab wali waa threat weyn iyo ISIS dowladana way ku fashilantay farmaajo hogaamiyo 2 sano qabsaday xataa 4 sano inuu la dagaalamo waxaa la isdhihi karaa 3 degmo kaliya ayuu ka qabtay waa Marka Janaale iyo Awdhiigle wax kale oo ka qabta male wali badooyin ay xukumaan waxa uu soo dego hubkoodii meel walba maraan lacag badanna way suubshaan qodobka labaad constitutionka Soomaaliya wali waa qabyo dastuurka Soomaaliya wali waa qabyo dowladana 4 sano oo hogaaminaya farmaajo maysan dhameystirin qodobka saddexaad siyaasadda arrimaha gudaha xukuumadda farmaajo iyo dowladda farmaajo dhammaan way ku fashilantay 4 sano la soo dhaafay waxay dagaal ka dhamaan laayihiin maamul goboleedyada qaasatan Jubbaland iyo Puntland mid ugu dambeysay ah Samareeb shirkadda afraad ee ku soo kala tageen heshiis in doorasho dhacay Soomaaliya ka dhacayso doorashada bad iyo inaysan ka dhicin xataa lagu heshiin waayo waxaa muuqata siyaasadda arrimaha gudaha inuu farmaajo ka jeeftay halka siyaasadda arrimaha dibadda uu waqti badan uu ku dhumiyay qodobka afraad dhiibistii qalbi dhagax loo dhiibay Itoobiya taasoo ahayd fadeexadii ugu weyneed taasoo cambaar dabada ku taala oo ku ah xukuumadda uu hogaamiyo farmaajo maadaama uu u dhiibay TPLF iyo Itoobiya ayasoo laga soo qabtay gaalkacyo waxaa habboon xataa haddii uu dambi galay oo Itoobiya ka galay Cabdikariim Muuse qalbi dhagax in maadaama Soomaaliya xabsi ay leedahay Muqdisho xabsi ay leedahay dowladda in la geliyo la maxkamadeeyo laakiin in mataqaana asoo cadaalad la marsiin daara inta lagu qaato la dhoofiyo kabacdina isla markii xukuumadii Xasan Cali Kheyre oo farmaajo ku sheegto in aan la fiihin argaxiso Cabdikariim Muuse qalbi dhagax taasi ummadda Soomaaliyeed ka yaabisay waxayna cadaatay in maamul goboleedkii sida Soomaaliland iyo Puntland oo alaaba oo lafta dhiibi jiray inuusan ka duwanaan farmaajo qodobka shanaad caburinta mucaaradka sida Cabdiraxmaan Cabshakuur habeen la weeraray 5 ilaaladiisa la dilay maxkamad la soo taagay maxkamadina ee tiri wax lagu haysto ninkan ma laha siyaasigan ma laha dowladda xataa cadeyn weysay ninkan waxay ku weerareen 5 ciidanna ee ku dileen isra cadeyn waayeen sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif oo baladweyne u duul raba abaarta ka qayb gal raba ummadda Soomaaliyeed caawin raba in la yiri ma duuli kartaan in xataa la yiri kismaayo ma duuli kartaan farmaajo wuxuu cadeystay in uusan caburiyo mucaaradka ka soo horimaada siyaasadiisa cidii u allaasana inuu jagooyin uu siiyo taasi oo la mid ah authoritarian regime ka jira wadamada Carabta wadamada Afrikaanka ah mentality-gooda ah qofkii ka hor imaada inay caburiyaan ama dilaan ama xiraan ama wacaga jugleeyaan qodobka toddobaad uu ku fashilmay farmaajo waxa weeye Abiy Ahmed markuu qodobka lixaad aan dhahay Abiy Ahmed markuu imaaday Soomaaliya in afar dekad uu yiri maalgasho Itoobiya ogtiina faqiiriyiin cadawga Soomaaliya ahayd ila yiraahdo afar degad maalgasho waxay ahayd mid ummadda Soomaaliyeed meel ka dhac ku ahayd qodobka toddobaad dib u heshiisiin
ilaa ya hadda 4 sano soo dhaafay dowladdu hogaamiye farmaajo wax dib u heshiisiina may qaban Soomaaliya dib u heshiin kama suubin sida ogtiin 91 ilaa hadda waxa dhamaanta isku wada leenay qabqabaa'ilo wax aan ka xal aan naga xalisno malahan waxay ahayd dowladda inay isku keento dhammaan si aan dib u heshiisiin loo suubiyo dhibkii qabaa'ilooyinka isgeesay laga xaltamo leys afiyo ka bacdi dowlad xoogan aan ku dhisano South Africa sida ogtihiin madowga cadaanka iyo apartheidki way heshiiyeen Rwanda waxaa dhacay dib u heshiisiin oo Hutu iyo Tutsi markay heshiisay way isku imaadeen ka bacdi intaysan dowlad suubisanin way heshiiyeen ka bacdi dowlad xoogan oo arkaysa maanta one of the best government in Africa ee Rwanda suubisteen qodobka 8 adeega bulshada farmaajo iyo xukuumaddiisa way ku fashilmeen inay adeega bulshada dhammaan Soomaaliya ku faafiyaan ama geeyaan sida waxbarashada caafimaadka beeraha public service dhan dowladda wax ay ka qabatay male 4 sano la soo dhaafay iyo shaqo abuurka dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba 70 waxaa la lahaa dhalinyaro ummadda Soomaaliyeed shaqo abuur loo suubiyo malahan badankoodna waxaa cad inay mataqaana ka niyad jabeen dowladdu hogaaminayo farmaajo qodobka 9 ugu dambeeyso waa in doorasho qof iyo cod ah uu soo suubin farmaajo ilaa iyo hadda wax doorasho cod maadaama uu balan qaaday ummadda Soomaaliyeed doorasho cod u suubinay xataa doorashada codka hal qof iyo cod iska dhaafay tii dadbaneed ayaa laga laayahay maadaama maanta ay soo idlaatay 4 sano xilligiisii Soomaaliya xilligii aadaysay meeshii aadaysay ilaa hadda la mandate-kiisana oo maanta ku dambeeyo waxaan ku soo gunaanadayaa intaas anoo ku soo ekiyay 9kaas qodob inuu ahaa intuu ku fashilmay ugu dambeyntii daawada meel walba joogtid ama ahaa muxaafid ama ahaa mucaarad ma u qalmaa farmaajo in mar labaad la doorto mise uu ku fashilmay 4 sano ee la soo dhaafay ummadda Soomaaliyeed uu u riyaaqday habeenkii madaxweynaha uu noqday February 2017 sideedeeda ayagoo filayay inuu hagaajin doono Soomaaliya haddaba ma ahaaday ninkan shala u riyaaqnay u ooni u banaan baxnay farmaajo geey dhahanay hogaamiyihii saas ahaa miyuu noqday mise uu noqday mid fashilmay anigoo su'aashaas noqonay qof ugu horreey ka jawaabay daacadna uga jawaabay madaxweyne farmaajo wuxuu lumiyay fursadooyin qaali ah dahabi ah asagoo haysto ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan caalamka wuxuu ku fashilmay 4 sano la soo dhaafay hoggaanka ummadda Soomaaliyeed balse waxaa nasiib darro maanta inaysan jirin cid dhaanto ragga markaad fiirisid ragga la tartamayo siyaasiyiinta la tartamayo oo dhammaantood aan wada naqaano madaxdii hore waddanka madaxweynaha ka soo noqotay ra'iisul wasaare ama wasiirin ay yihiin inaysan asaga dhaamin wax dhaamana aysan jirin laakiin waxaa xaqiiqa 4 sano la soo dhaafay inuu ku fashilmay hoggaanka waddanka Soomaaliyeed أقول صار نقولين مت كان فيليني وصومالي نقول هجاجيناي وصار نقولين ونقول فدي إسكافدية دولة دي سنة إضافة لهذا مقدشة هي مكان المكرمة الشبابنا ولي أمن حمانا صومالي إيساتو فضلا فكر كاي كديبو سيسح أنا أقول ديبو أديكو قفنا في لقعتين قفنا عن بس رمتك الشيء وسلامتي نقدر شرفت له ما هو بعد جوكتان